السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaynu qaadanaynaa cashirkii saddexaad ee maadada xisaabta fasalka fanfoorka chapterkiisa koowaad. Cashirkan waxaa ka bilaabaynaa ciwaanka labaad ee buugga chapterka koowaad. Ciwaanka labaad ee chapterka koowaad waxaa loo yaqaanaa Sum and Difference Identities for Sun and Tangent. Isku darka iyo kala jaridda caddaamayaasha sun iyo tangent. In this section qaybtan we shall study waxaan ku baran doonaa formulas qaacidooyinka that allow us taasoo noo ogolaanayso to evaluate inaynu qiimeyno the trigonometric functions fansaarada trigonometriga of the sum and difference isku darka iyo kala jaridda of two angles laba xaglood. qaybtan waxaan ku baranaynaa qaacidooyin kaasoo noo ogolaanaysa inaan qiimeyno trigonometriga fansaarada trigonometriga kuwaas oo ah kala jaridda iyo isku darka laba angle ama laba xagood. The formula qaacidada of sin A plus B and sin A minus B formula sin A plus B iyo sin A minus B cashirka wuxuu ka kooban yahay waa sin iyo tangent. Marka qaacidada sin A plus B iyo sin A minus B waxay kala yihiin sin A plus B waxaa lagu helaa sin A cos B plus cos A sin B. waa markay qaacidadu tahay plus ama positive. sin A plus B waxaa lagu helaa sin A sin cos B plus cos A sin B. markay minus tahayna waxaa lagu helaa sin A sin B sin A minus B waxaa lagu helaa sin A cos B minus cos A sin B. waxay ku kala duwan yihiin bas markay plus tahay waa plus, markay minus tahay waa minus, inta kale waa isku mid. sin A plus B waxaa lagu helaa sin A cos B plus cos A sin B. markay minus tahayna sin A minus B waxaa lagu helaa sin A cos B minus cos A sin B. waa qaacidada sum and difference identities for sin. qaacidada tangent the formula qaacidada for tan A plus B and tan A minus B qaacidada tan A plus B iyo qaacidada tan A minus B waxay kala yihiin tan A plus B waxaa loo helaa tan A plus B waxaa loo helaa tan A plus B loo qeybiyey tan A plus B waxaa loo helaa tan A plus tan B oo koreya laga jaray loo qeybiyey 1 minus tan A tan B. tan A plus B waxaa loo helaa tan A plus tan B loo qeybiyey 1 minus tan A tan B. tan A minus B na waxaa lagu helaa tan A minus tan B loo qeybiyey 1 plus tan A tan B. tan A minus B waxaa lagu helaa tan A minus tan B loo qeybiyey 1 plus tan A tan B. markay plus tahay koreyaha waa plus, hooseyaha waa minus, 1 minus waay. markay minus tahayna koreyaha waa minus, hooseyahana waa plus. intaas ay ku kala duwan yihiin, inta kale waa isku mid. tan A plus B waxaa lagu helaa tan A plus B loo qeybiyey 1 minus tan A tan B. tan A minus B waxaa lagu helaa tan A minus tan B loo qeybiyey 1 plus tan A tan B. aan qaadano example ku saabsan cashirkeena. example-ka koowaad waxaa la lahay find soo hel the exact value of each. soo hel qiimaha saxda su-aalahan soo socda. su-aasha koowaad ama xarafka A waa sin 75 degree. sin 75 degree ayaa naga rabaa inaan soo helno qiimihiisa saxda ah. sin 75 degree qiimaheeda sax ayaa naga rabaa. B waa tan 7 by loo qeybiyey 12 tan 7 by loo qeybiyey
toban iyo laba ayaa la rabaa inaan soo helno qiimaha saxda ah. xarafka ku xiga waa sin 40 degree cos 160 degree laga jaray cos 40 degree sin 160 degree qiimaheeda ayaa naga rabaa inaan soo helno. aan ku bilowna xarafka a oo ah sin 75. solution waxaan soo qaadanaa xarafka a. xarafka a wuxuu ahaa sin 75 degree inaan soo helno qiimaheeda. sin 75 marka horeyso ma ahan xagal toos ah, marka waxaan raadinaa laba xagal markii isku daro ama la kala jaro keenayso 75. laba xagal markii isku daro ama la kala jaro keenayso 75. 45 lagu daray 30. 45 waa xagal, 30 waa xagal, markii isku daro waxaa soo bixi 75. marka 75 waxaan bedelaynaa 45 lagu daray 30 maadaama ay 45 lagu daray 30 ay tahay 75. waxayna sameynaa marka saan ayaan soo qaadanay. kadib 75 waxay ka timaaday 45 degree oo lagu daray 30 degree. 45 lagu daray 30 degree waa 75 degree. marka sin 45 degree plus 30 waxay u qoran tahay sin 45 waxay u taagan tahay a plus 30 waxay u taagan tahay b. sin a plus b qaacidada loo isticmaali jiray ayaanu isticmaalaynaa oo shaqeynaynaa. waa sin 45 plus 30 oo qoran sin a plus b. sin 45 plus 30 degree waxay u qoran tahay sin a plus b. sin a plus b waxaa lagu furfuraa sin a cos b plus cos a sin b. meel kastoo a waxaan bedelaynaa 45, meel kastoo b na waxaan bedelaynaa 30. a waxaan bedelanay 45 plus soo qaado b waxaan bedelanay 30 is equal sin a soo qaado 45 bedel, cos soo qaado 30 b da bedel 30 bedel, plus soo qaado cos soo qaado a da bedel 45 bedel, sin soo qaado b da bedel 30 degree bedel. kadib sin 45 cos lagu dhiftay cos 30 plus cos 45 lagu dhiftay sin 30 mid kasta way qaybsamay qiimaha ayaan raadinaynaa. sin waan soo qaadanay 45 degree plus 30 ayaan isku darnay waa sin 75 degree is equal sin 45 qiime waa radical 2 loo qaybiyay 2 lagu dhiftay cos 30 degree qiime waa radical 3 loo qaybiyay 2 plus cos 45 degree qiime waa radical 2 loo qaybiyay 2 lagu dhiftay cos 30 degree qiime waa 1 loo qaybiyay 2 ama half. 45 ayaa qiimeynay waa radical 2 loo qaybiyay 2 lagu dhiftay cos 30 qiime waa radical 3 loo qaybiyay 2 plus cos 45 qiime waa radical 2 loo qaybiyay 2 lagu dhiftay sin 30 qiime waa radical waa half ama 1 loo qaybiyay 2. kadib maxayna sameynaa qaybtan waa isku dhufsan tahay, qaybtan waa isku dhufsan tahay. marka radical 2 ayaa waxaan ku dhufaynaa radical 3 labana labaan ku dhufaynaa plus soo qaado radical 2 ayaa waxaan ku dhufaynaa 1 2 na waa isku dhufaynaa 2 haddaa radical 3 lu dhufto waa radical 6 laba haddaa lu dhuftana waa 4 plus soo qaado radical 2 haddii 1 lu dhufto waa radical 2 2 haddii lu dhuftana waa 4. kadib waxaan sameynaa hooseyaasha waa isku mid hal xabo kasoo qaado kadib korneyaasha isku dar. hooseyaasha waa isku mid hal xabo kasoo qaado 4 u qaybi waa hal radical 3 hal radical 6 ku dhufo waa radical 6 plus soo qaado 4 u qaybi waa hal radical 2 ku dhufo waa radical 2. kadib jawaabta waxay noqotay radical 6 plus radical 2 loo qaybiyay 4. waxaan ka shaqeynay xarafka a. waxaynu ka shaqeynaa xarafka b. xarafka b waa tan 7 by loo qaybiyay 12. marka horeyso 7 by loo qaybiyay 12 ayaan waxaan u qoraynaa 7 ayaan kala qaadaynaa laba tir marka isku daro 7 keenayso waa 3 lagu daray 4. 3 lagu daray 4 waa 7. kadib mid kasta by way leedahay waxaan goonisaynaa waxaan dhahaynaa 3 by lagu daray 4 lagu daray 4 by 12
toban iyo labadana mid kasta gooni u sii 12 lagu daray 12 saas ayaanu qoraynaa. waxaanu sameynay todobada ayaan kala qaadnay, waxaan kala qaadnay 3 iyo 4. 3 4 marka isku daro waa 7. waxaan dhahnaa 3 by loo qaybiyo 12 plus 4 by loo qaybiyo 12 hooseeyaha mid kasta gooni ayaan sirnay. kadib waan soo yaryaraynaa 3 3 u qaybi waa 1 12 3 u qaybi waa 4 4 4 qaybi waa 1 12 4 u qaybi waa 3. qaabkaas ayaan u qoraynaa. maxay noqonay 3 3 u qaybi waa 1 1 ku dhufo by waa by 4 4 u qaybi waa 1 1 ku dhufo by waa by 12 3 u qaybi waa 4 12 4 u qaybi waa 3. kadib tan by loo qaybi 4 plus by loo qaybi 3 waxay u qoran tahay tan a plus b. tan a plus b qaacidada loo isticmaali jiray ayaan isticmaalaynaa. tan a plus b qaacidada loo isticmaali jiray ayaan isticmaalaynaa. tan a plus b waxaa loo helaa tan a plus tan b loo qaybiyay 1 minus tan a tan b. meel kastoo a ah waxaan bedelaynaa by loo qaybiyay 4. meel kastoo b na waxaan bedelaynaa 4 by loo qaybiyay 3. tan soo qaada a bedel waa by loo qaybiyay 4 plus tan soo qaada b da bedel b waa halkaas b bedel waa by loo qaybiyay 3 loo qaybiyay 1 soo qaado minus soo qaado tan soo qaado a da bedel iyada waa by loo qaybiyay 4 tan b bedel waa by loo qaybiyay 3. kadib waan qiimeynaa tan by loo qaybiyay 4 ayaan qiimeynaa plus tan by loo qaybiyay 3 waan qiimeynaa loo qaybiyay 1 soo qaado minus tan by loo qaybiyay 4 qiimee tan by loo qaybiyay 3 na qiimee. maxay noqonay tan by loo qaybiyay 4 hadii la qiimeeyo waa 1 ayaa soo bixi plus tan by loo qaybiyay 3 hadii la qiimeeyo waxay noqonay radical 3 loo qaybiyay 1 minus soo qaado tan by loo qaybiyay 4 qiimee waa 1 lagu dhuftay tan by loo qaybiyay 3 hadii la qiimeeyo waxay noqonay radical 3. kadib korka ayaan soo qaadayna 1 plus radical 3 soo qaado 1 minus 1 kan radical 3 ay ku dhufan yahay waxay noqon marka 1 hooseeyaha waxa kasoo bixi 1 minus radical 3 ayaa soo bixi. korayaan soo qaadanay 1 kan soo qaadanay kadib hooseeyaha 1 kan waxa ku dhufata radical 3 waa radical 3. kadib waxaan sameeynaa hooseeyaha wuxuu u qoran yahay 1 minus radical 3 ayaan waxa ku dhufanaa kor iyo hoos conjugate ahaan ayaan isticmaalayna lagu dhuftaanayna 1 plus kor 1 minus radical 3 ayaan kor ku dhufanaa loo qaybiyay 1 plus radical 3 qaabkaas ayaan qoraynaa. waxaanu sameynay qaybta dhan ayaan soo qaadanay marka horeysa lagu dhuftay 1 minus radical 3 oo hooseeya oo conjugate ayaan kor iyo hoos ku dhufaynaa iyadoo plus ah 1 minus radical 3 ayaa waxaan kor ku dhufanay 1 plus radical 3 loo qaybiyay 1 plus radical 3 waa conjugate ayaa loo yaqaanaa. kadib 1 kan aan ku dhufaynaa waa 1 ka dana radical 3 ku dhufo waa radical 3 plus radical 3 1 ku dhufo waa radical 3 plus radical 3 waa radical 9 xid ka bixi waa 3 hooseeyana waxaan isticmaalaynaa a minus b square qaacidadaas ayaan isticmaalaynaa. maxaynu sameynaa 1 ayaan 1 ku dhufanay waa 1 kadib 1 kan radical 3 ku dhufo waa radical 3 ku dhufo waa radical 9 radical 3 ku dhufo radical 9 xid ka bixi 3 ayaa soo bixi hooseeyaha waa 1 minus radical 3 lagu dhuftay 1 plus radical 3 waxaan sameeynaa 1 ayaan 1 square saar minus radical 3 na square saar kadib
waxaan sameynaa waxaan isku daraynaa 1kan iyo 1kan 1kan iyo 3 isku dar waa 4 hal waxaan ku darnay 3 waa 4 kadib radical 3 oo isku darsamaan waxa isku darsamay radical 3 1 baa u qarsoon halkana 1 u qarsoon labada hal isku dar waa 2 radical 3 soo qaado hooseeyaha hal laba mar isku dhufo waa hal minus soo qaado radical 3 laba mar isku dhufo waa radical 9 radical 9 xid ka bixi waa 3 kadib waxaan sameeynaa kadib koreya soo qaado 4 plus 2 radical 3 waan soo qaadanay sida aan ku soo qaadanay hooseeyaha 1 minus 2 ka jar 1 minus 3 ka jar waa minus 2 kadib minus 2 dan 4 way leedahay 2 radical 3 na way leedahay gooni u sii 4 waxaan qiimeynaa minus 2 hadii 4 minus 4 hadii minus 2 loo qaybiyo waxay noqonay minus 2 oo 4 labo qaybi waa 2 kadib minus 2 sii sidoo kale plus 2 iyo minus 2 isku qaybsamay way isla bixi maadaama ay plus iyo minus kala yihiin kadib plus iyo minus isku qayb waa minus radical 3 na soo qaado jawaabta waxaa soo bixi minus 2 minus radical 3 say ku soo baxday 4 2 qaybi waa 2 minus ta labada sii waa minus 2 noqonay minus minus u qaybi waa minus laba qaybi waa isla bixi waa hal kala qoro radical 3 na soo qaado waxaa soo baxay minus 2 minus radical 3 xarafka C waa sin 40 degree cos 160 degree minus cos 40 degree sin 160 degree qaacidada example kan hadaan u fiirsano waa sin 40 degree cos 160 degree minus cos 40 degree sin 160 degree waxay qoran tahay qaacido la soo furfuray oo sin kamid ah marka waxay noqonaysaa sin A minus B ayaa qoran tahay oo sin A minus B waxaa la furfuri jiray cos waxaa la furfuri jiray sin A oo 40 ka u taagan A cos B sin cos minus cos A sin B cos A sin B qaabkaas ayay qoran tahay marka 40 waa laba xagal hal waa 40 xagalna waa 160 laba xagal ayaan kala jaraynaa waxay noqonay 40 minus 160 degree oo waxay qornay sin A minus B xagal waa 40 xagalna waa 160 kadib waa kala jaraynaa 40 waxa ka jartaa 160 40 hadii laga jaro waxay noqonay minus 120 ay noqonay 120 xagasho hadii mar noqoto hadii yeelato minus sida tan camal oo kale minus 120 xagal hadii yeelato minus waxaa jira qaacido la yaqaan negative rule for angle waxay ka hadlaan hadii xagashu minus yeelato sida 100 minus 120 degree qaacidooyinka ayaa loo isticmaalaa hada sin theta oo 120 degree u taagan waxay noqonay minus ayaa sinta gadaasheeda ay minus 3 sinta gadaasheeda ay minus 3 hadii cos aragto oo cos minus 120 degree ama aragto minus waa baabi waxay noqonay cos theta ama cos 120 tan minus theta hadii aragto oo thetaas tira lagu bedelo sida tusaale tan minus 120 minus tan gadaasheeda ay tahay qaacidooyinkaas waxaa loo yaqaanaa negative rule for angle haddana waxaan isticmaalaynaa sin minus 120 degree minus ayaan gadaal gelaynaa oo sinka gadaasheeda ay noqon minus sinta minus waxay noqotay sinta gadaasheeda waxay noqotay minus sin 120 minus sin 120 degree hadii la qiimeeyo waxaa soo bixi radical 3 loo qaybiyo 2 minus soo qaado